السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka diga daawanayso Palis Tube waa channel keen aad ku arki jirteen muuqaalo qurux badan oo aad idin cajibiyo caawa waxaan u fadhiyaa reaction oo ah gabar walaasheena Soomaaliyeed oo xagga TikTok caanka ka ah lagu fadaxaystay horta raggeena Soomaaliyeed aad bay nacasiin u yihiin aad bay xun xitaa aniga igu dar because ragga dayma tan xitaa ku jira laakiin waxyaalaha qaar damiirkayga ayaa siinayna inaan ku dhaqaaqo warniyahow adiga nacaska ah oo waxaas ku dhaqaaqayo gabar Soomaaliyeed waa walaasha waa hooyada kale waa dhaleysa waa xaaskaaga xumaatada inaad kula dhaqaaqdid oo social media aad keentid aad bay xun tahay dumarkeena waa iska maskiin aad bay maskiin u yihiin maadaama maanta labada qof aad xiriir ka dhaxeeyo horta raggeena waa dabaalo aad ay dabaalo yihiin marka raggeena waa nacsiin waa dabaalo war gabadha waa maskiin waa gabar dumarkeen dhan waa maskiin maanta wax yar hadaad ku akhrisid mis intaad meel u fariisatid aad dhahdo qoftan maanta waa ka helay laakiin saab soo jeedan lahaa falkeeda waa inaan sameeyo hadaad maanta u talagasho waa sameyn kartaa wali sad doonta ka yeelan kartaa dumarkeena because gabar si kasta isku adkayso si kasta isku jilciso waad ka keensan kartaa wax walba jiro laakiin haddaad aadid wixii waxaan oo keensanayaa si fadeexad ah mise arrimaheeda xuna bulshada soo dhigaya mise ceebteeda bulshada soo dhigaya xumaata haday kugu jirto wallahi waligaa in horumar gaareen waa nacasnimo waa dambiir xumo waxa ragga ku jira waa noocaad oo kale oo ceebay doofaar ku dhalay ku fududaaday marka gabadha walaasheena cayooni qurux ayaa waxaa lagu sameeyay wiil bay ma aqaan xiriir isla sameeyay ma aqaan I don't know wax isla sameeyay video call ay isla saarnaayeen video call kaas oo ah meel aan munaasib ahayn ay tusinayso qofkaas oo halkaan aan ka sheegi karin meelaha munaasibka horta u asturneed masha Allah may banaanin laakiin way gacanteedii iyo wax bay ku tataawaneysay sida muuqaalka arkay waxaan kala xishooday xitaa inaan halkan idin soo dhigo because ma jeceli waxyaalahaas oo kale inaan bulshada la hor imaado waxaan ka xumahay qofku waa dumar waa daciif laakiin qofka ka faa'iideystay waa screen recorder ka duubay oo isla markiina dad bulshada soo dhigay aad bay xuntahay war maanta qofkan ay xaaskaaga tahay mise xiriir idin ka dhaxeeyo labada qof way iska heli karaan oo way sheekaysan karaan oo wax walba ay qaban karaan laakiin dhibka jiro waxay tahay dumarkeena isma ilaaliyaan maanta qofa muddo waqti siinayo uu la hadlaya ada qofkan wuxuu isku dayaa qoftan sidoo ku soo jeedan lahay final uu sameeyay markuu sameeyo qoftii ayada dhan way iskala daadinaysaa oo calaashan wax u qarsoon bumana sidoo doon ka sameysanaya hablaheena Soomaali isilaaliya aydan leeyahay ninka ragga maanta duu ku soo waco xitaa ha ka ogolaanin inuu call video kula hadlo wada hadlaysaan halkan daawada joogtaan telefoon qoraal ku wada hadla mise cod ku wada hadla caadi waa laakiin call video qofkan wajigaaga markuu arko step by step dumarkeena amaani waxdii laga badaway kala daadanayaan step by step hadhow meel xun ku soo istaajinaya qofkana maanta aalada social media horta horumartay aaladaha isticmaalaya waa smartphone way horumareen wax la dhahay screenshot ay leeyihiin adig wax ma ogid waa iska nacnac leedahay wax walba waxa doonta tusinaysaa qofka screenshot ka qaadanaya hadhow marka isku dhacdaana bulshada soo dhigaya kuleeyahay saadona ka sameysanay ma sameynaysaa mise alaashan muuqaaladan ay hawada soo gelinayaan taasna waa sharci daciifnimo oo aad isku keento waa aad u xun hadalka dhab xitaa waan ku hadli lahayn xanaaq ay jirtis ininkaas wuxuu sameeyay horta aad baan uga xumahay gabadha walaasheed waxa ku soo gaaray maadaama ay ahayn horta wax arrin aad u weyn laakiin intaas wax ka weyn oo sameyn kara qofkaas oo waxaas ku sameeyay waxaan jeclaan lahaa inaad iska fiirisid oo aad ka dheeraatid oo aad bari ka ahatid waxyaalahaas kaliya maahan hablaheena Soomaaliyeed dhan idaawanayaan maanta ninka ragga hadduusan ku qabin oo
xaaskiis aad ahayn ha u sameyn jacaylka dunida u qabo hadaad doontid ha u sameyn inaad jirkaaga meel yar ka tustid xitaa oo cawro kuugu ah oo dambi kuugu ah inaad tustid habeenka waxa laga tegay iska ilaali mana fiicno adigana walaashay wixii kugu dhaceen haddii kadib cashira ku noqoto taas gabdhaha Soomaaliyeed cashira u noqoto waxaan su'aalayaa ragga warniyo ragow war in adeeryaalo war gawr weyn ila dhalatay waad dhasheen way idin dhashay waad guursan doontaan maxaa marka waa dumarkeena waa daciif maxaa idinka qaldan markaad ku dhaqmaysaan waxyaalaha xun mise aad la aadaysaan meelaha xun social media-ka war qoftan waa miskiin saa doontaad ka samaysatay adiga wixii doonta aad ka samaystaa haddana waxaad kula dhaqmaysaa inaad bulshadaas aad faahfaahisid war xumaatada lama faafiyo war wanaagga fiiri qoftan sida doonta sida aad doonta haday ku samaysan ma aha inaad hadda isku dhacdeen xitaa ma aha inaad meelaha hadda aadisid aad baa looga xun yahay aad baana loogu fiican yahay waxaalahaas inaad ku dhaqaaqdaan guys hadallada ku hadla xitaa ma controlo Soomaaliga gaja u noqday xanaaq darteeda xanaaqa oo aan ka xanaaqay ninkaas wuxuu ku dhaqaaqay haddana meeshu soo dhigay ayaa Facebook oo meel walba la isku diray xitaa luqad lagu soo diray ka hadal waxaan ka hadlaa qof muuqaalka inta soo qaadmanaa qoftan saana loo galay saan waay maana YouTube keena haddana si faahfaahina wacad mana rabo inaan kusii dheeraado aad baan u qiirooday aad baan ugu xumaaday muuqaalkaas markaan arkay gabadha walaasheen loola kacay aad baan ugu xumaay boqolkiiba gabdho walaalaheena dumarkeena is ilaaliya raggan hadda maanta joogo qof quman qof qaldan kulli iskugu jiraan shanta farood ilaahay ma wada samin dadkan waa saas war maanta haddaad labada qof is qabtaan oo xiriir intaasoo sano ka dhexeeya weli isguursan wax walba istuseen caadi loo wada jeedo idinka aad isku aamin qabtaan maanta haddaad isqabataan bilaadam isqabtaan qof waxaan isqabni malaha carab iyo ilka isqabto haddaad isqabataan ma hadde wax walba inaa social media la keeno ma fahamta wixiina private ay noqdaan adduunyada dadka social media kula soo ordo waxyaalaha qaladka ma fiicno hadhow adigu ayuu dhib ku keenayaa aad u weyn mana fiicno ragow idinkana arrintaas ka fiirsada ka fiijinaada kana dheeraada war gabadhaad ceebeynayso walaashaa ma ceebanaysaa maanta adii tan kula dhalatay uma ogolid nin ragga inuu wax ka duubo social media dhigo uma ogolid waa tooriyeen mise waa dila qofkaas uma ogolid marka sidee ku ogolaatay gabadhaas inaad falkaad kula dhaqaaqdo meeshaas aad dhigtay walaashaaba uma ogolid maad ka soo qaadid qofka la hadlaysa inay walaashaada oo kala tahay u qadari sida tan adag kula dhalato oo kale aad u qadaris xishmad sii midda kula dhalatay xishmad u siisid sharaf sii midda kula dhalatay u sharaftid oo kale ma aha inaad waxyaalo xun aad kula dhaqaaqdid ma aha waxyaalo daran oo aan munaasibeen inaad duurka u gelisid waxa aad ka samaysid sorry guys hadda idinku fududaaday ma jeclid yani dumarka aad baan u jeclahay in wax lagu sameeyo ma ogeli inay aad baan uga xumahay ragga maanta joogana wallahi isku mid ma aha qaara xun qaara fiican war ka xun midka xumo nacaska ah war waxa aad sameynaysid ka fiirso walaasha in lagu sameeyo marabtid xaaska in lagu sameeyo marabtid midda aad xiriirka ala sameynaysid in lagu sameeyo marabtid war waad isqabateen qofkan haddaad isqabateen kala socda inaad qadarisid qiimo u yeeshid oo adiga maanta nafsada adiga ahaan adiga iska soo qaadneen ragga ah maanta adiga ahaan ma jeclid xabadkaaga oo baraaxada social media in la dhigo ragga qaar ma ogolo way oo ogolaato marka inaad gabar aad la sheekaysanayso waqti la qaadanayso inaad wax fadaxa ka duubtid mise social media aad dhigtid soo dameer xumo kuuma aan taas ayaa aad u xun qofkii maanta soo dhigay dabcan asagu isku weeyaa qofta caan waay war caan waxay ku ahaato khayr ha ku ahaato mise wanaag ha ku ahaato social media iskentay TikTok bay iskentay wax bay samaysatay bulshada isbartay bulshada maanta halkan Soomaalida aan joogno qaar xumaan bay isku baraan qaarna wanaag bay isku baraan ayada u taala sidii isku bartay bulshada ma fahantay oo waa la wada yaqaana laakiin ma aan maanta qofkaas waa caannimadiisa ugu faa'iideysanayo inta uu recording aan ka duuba meelaha soo dhiga
nimanka ragga maanta oo caanka ah oo maanta bulshada ku jiro wallahi way is ilaaliyaan way isdhahan dumarka xitaa qaar xun oo ku jiro ay xitaa way isdhahan maanta qofkan alla hadlaysa ama screen recorder wax ka duuba oo meel qaldan ku dhiga way jiraan dad noocaas oo kala laakiin dumarkeena badana kuma dhaqaaqaan tii xun oo maanta screen recorder wax intay ninkaas ka duubto social media ma dhigto abadan ma dhigto علشان وحوقته waxa inuu xun yahay laakiin adiga way au fikir weysay qoftan wax xun ay ku fikirtay mise علشان wax ay duubtay ma dhiginay adoo nin rag ah boqolow ah waxa ayada ka duubtay way au fikir social media ina dhigtay mise waxa isleedahay qofta waa caan bulshada dhanaa wada taqaan waxyaalaha ay sameyso waa ina dadku bandhiga no war xumaatada ha faafinin xumaatada ha faafinin xumaatada wixii xun wanaag u bedel qari waa walaashaada kala qari ceebteeda astur ilaahay markaas adan uu ku asturaya oo ceebtaada uu ku qarinaya laakiin xumaataad wareejisay inteed ku gaartay intee faa'iido ku keentay waxa faa'iido ku gaartay mana adigu waa dhul cadeynayso waxa leedahay ku faraxsanahay maadaama ceebteeda banaan ku soo dhigay wax ceeb banaan ku soo dhigtay malaha walaasha ceebteeda banaan ku soo dhigtay nacasiyo faa'iido maliidi wadaalay soo hadlay igara noqda guys ninka suldaanka maanta ka xanaajiya dhacaysa waxa iga xanaajiyay ragga maanta sida qaabka daran uu dhaqmo social media oo ku dhaqmaa walaalaheena gabdhaheena sida qaabka daran waa hilib sil dumarkeena hilib sil ma aha sida doonta inaad ka yeelatid sida doonta inaad ula dhaqantidna ma aha maxaa kaa qaldan nin weyn baa ilaah ka dhigay okay muuqaalkan yaan kusii dheeraanin guys gabdhaheena Soomaaliyeed sorry hada buuqa aad ka maqasheen gabdhaheena Soomaaliyeed aad bay u sharaf badan yihiin ixtiraamo meel walba joogtaan qadariya marka walaashaada qadarshid ayaa tan kala qadarinaysa sida walaasha u qadarinaysa taasna qadari xumaatada xitaa iyada day xunta xitaa wanaag uu bedelo waani waxaan ku fiicnaa waxaan sameeyay ma fahamtay shaydaan haduu idin soo dhax galana shaydaan iska naar mar walba ilaahay soo xasuuso waxa uu ku saxmaya ma aha si qaldan oo la dhaqantid gabdhaha marka guys halkaas aan uga baxaya muuqaalkan iga noqda hadaan qof u gafay iyo hadaan si qaldan u hadlo waxaan aqay keenay marka qayb badan idinka tagaya walaalay Soomaaliyeed meel walba joogtaan waxaan leeyahay dumarkeena ha noolaadaan meel walba joogaan wallah